أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا الله قالي آد بندي وذا السلامية آد بندي سوى ذا دوينية وحلقة كلا المسامح كريم. حلقة دني وإيموشنال أنبا درين بدن أي وضع حقيقة وحا أين حلقة دن ku saabsan tahay laba wiil oo dhalinyaro ah oo saaxiib ah. Labada wiil khilaaf ayaa dhex maray. Khilaafkaasi waxa sabab u ahayd gabadh. Kadib labada wiil mid kamid ah oo la yiraahdo Caadil ayaa yimi barnaamijka Musaamax Kariim. Wuxuu soo codsaday saaxiibkii Hamza in la heshiisiyo. saaxiibkii Hamza waxay ahaayeen muddo dheer oo sanado badan ay ahaayeen saaxiib. Hamza mar dambe wuxuu sheegi doonaa 6 sano inay saaxiib ahaayeen. Wuxuu sheegi doonaa amba labadooduba runtii ay isku raaci doonaan in ay saaxiib ahaayeen muddo dheer oo 6 sanadood ah, in uu Caadil Hamza uu ka wan yahay 11 sanadood. saaxiibtinimo aad u dheer inay labadan nin ka dhaxaysay. waxa dhacday marka in uu khilaafka waxa sabab u ahaa Hamza gabadh ayaa u doonanayd oo uu rabay inuu guursado. kadib waxa dhacday in uu Caadil oo ninka maanta studio-ga yimi oo dalbanaya inuu saaxiibkii Hamza la heshiisiyo inuu ku arkay gabadhaasi maaragtay amba ka maqlay warar aan fiicnayn oo uu maqlay inay sumcadeedu ayna fiicnayn oo uu maqlay in ay rag kale la socoto inama badan la sheekaysato inan sumcadeedu ayna fiicnayn ay tahay. marka waxa uu leeyahay gabadhaasi ayaan arkay inay maaragtay hab dhaqankeeda iyo akhlaaqiyadkeedu ayna fiicnayn inayna istaahilin oo ayna u qalmin walaalkay amba saaxiibkay Hamza. aniguna waxaan rabay inaan uga digo, isaguna khalad ayuu u fahmay. anigoo gabadha maalin la fadhiya oo gabadha canaananaya oo rag kale ku arkay ama nin kale ku arkay ayuu noo yimi oo uu na arkay. kadib Hamza aad buu uga xumaaday, xiriirkiina sidaasi ayuu maaragtay iiga goostay, gabadhiina sidaasi ayuu ugu banaday. amba si kale hadaan u dhigo, xiriirkeedii iyo maaragtay mashruucii guurka ee uu rabay gabadha inuu guursado halkaasi ayuu ku joojiyay Hamza oo gabadhiina uu ka tagay. waxa uu leeyahay Caadil waxa markaasi aan rabaa saaxiibkay in la heshiisiyo. dabcan ciidankii baaskiilka ayaa loo diray. ciidanka baaskiilka markay tahay inan qurux badan oo timo dheer oo ma garanaysaa muuqda oo aan xijaabnayn, waxaan jecelahay intaa inaan ka jaro ma garanaysaa programka inanta quruxda badan maasha Allah inaan jaro oo aan timahaas qaawan ma garanaysaa qaybta aan soo galiyay anigana aakhiro dhinac layga weydiinin way dambigayga kaliya ayaaba igu filan. marka ciidankii baaskiilka ayaa loo diray inan blonde iyo timo dheer oo qurux badan ayaa loo diray. waxay ku tiri adigu soo ma tihid Hamza? magaciisii kalena way ku dartay, ma xasuustay marka magaciisa wuxuu ahaa. waxa ay ku tiri hooyadaas oo Faatima lama yiraahdo buu yiri cumrigaagu amba da'daadu soo 28 sano ma jirtid. buu yiri uu yaabay. waxa lagu yiri barnaamijkii Musaamax Kariim amba barnaamij kuma oran magaca Musaamax Kariim, waxa ku tiri barnaamij oo maaragtay Josh Qardaaxi uu soo daayo oo telefisyoonka ayaa lagu soo casuumay. kadib waaye buu yiri meeshii ayuu yimi sidii caadada u ahayd. marwalba qofka la casuuma isagoon ogeyn sababta meesha loo keenay oo laakiin ku faraxsan inuu Josh Qardaaxi la kulmayo ayaa meeshii la keenaa. kadibna waxa dhacday in uu Hamza markii meeshii la keenay ayaa dabcan uu salaamay, way salaameen Josh Qardaaxi waa lagu soo dhaweeyay barnaamijka. waxa lagu yiri anigu ma ihi qofka ku casuumay amba ku yeeray waxa qofka ku yeeray ee raba inaa xiriir maaragtay yeelataan oo isa saamaxdaan waa qofka halkan aad ka arki doontid. kadib meeshii daaqada ahayd ee laga tusayo qofkii kale ee qofkan u yeeray ayaa dabcan laga tusay. waxa uu arkay inankii inuu dhinaca kala fadhiyo saaxiibkiisii hore. waxa lagu yiri ma garanaysaa ninkan? wuxuu yiri haa waa saaxiibkay.
صاحبك markuu yiri George Qardaax uu ka yareeyay wuxuu yiri oo wali ma saaxiibkaaba markaasuu yiri way khiyaamay maxay helay gabadh aan anigu maaragtay ii doonanayd buu la sheekaystay waan qaayma dhabarka ayuu iga toogtay hadallo badan oo noocaas uu yiri caro aawadeed ayuu runtii u kacaa fadhiistay ninkaasi oo dhowr goor intuu istaagay fadhiiso ayaa lagu oranayaa aad iyo aad buu xanaaqay muraarad dilaacay runtii kadibna waxa dhacday in uu Hamza laga wareysto arrintii sidee wuxuu dhaceen wuxuu yiri aniga iyo wiilkan aanu saaxiibka nahay waxaanu ahay laba qof oo aad isu dhawaa يعني صاحبتينما aad u maaragtay u adag oo magaranaysa dad mar walbooda joogo saaxiib ayaanu ahayn haddana wuxuu yiri inta kaliya kumaanu eekaynay waxaanu ahayn laba qof oo hal shirkad ka wada shaqeeya shirkad qura ayaanu ka wada shaqeyn jirnay dabadeetana wuxuu yiri waxaan u ka haystay gurigii amba maaragtay xafladii amba meeshii aan inanta ku doonanayay waxaan u baray gabadhaydii aan rabay inaan guursado inuu yahay walaalkaygii oo kale ayaan u baray gurigaygaan keenay hooyaday iyo aabahay iyo familygayga ayaan baray sidaasaan xiriir u lahayn gabadhii aan guursanayay maalintaan doonayay ayaan ka haystay inuu garabkayga noqdo walaalkay oo kale uu matalo ayuu ii ahaa buu yiri wuxuu yiri laakiin muxuu sameeyay wuxuu yiri dhabarka ayuu iga toogtay wuxuu yiri gabadhii aan magaranaysa guursanayay ayuu igala sheekaystay kadibna wuxuu yiri waxa dhacday buu yiri sideed ku ogaatay markii la yiri wuxuu yiri maalin baa jirtay meel baan ka wada shaqayn jirnay oo shaqadii uu iman waayay caadil uu iman waayay shaqadii oo uu maalintaasi ahayd maalin uu shaqada off ka yahay amba maalin uu fasax ka yahay shaqada kadib qof ayaa horta wuxuu yiri gabadha sidaan u doonayba dad baa ila soo hadla waxa la igu yiraahdaa gabadha aad maaragtay ku doonan khatiibadaada waxa ay la sheekaysataa hebel ninkan saaxiibkay ayaa lagu sheegaa buu yiri telefoonno ilaa hadda aanan garanayn buu yiri dadkii ii soo dirayay ayaa wuxuu yiri ila soo hadla oo igu oran jiray gabadhay ninka saaxiibka ay la socotaa maalin maalmaha kamida buu yiri aniga oo shaqada ku maqan oo isaguna shaqada off ka yahuuna shaqaynin maalinta ayaa telefoon ii soo dhacay waxa la igu yiri gabadhii ay ku doonanayd saaxiibka caadil ayay makhaayad heblaayo kula sheekaysanaysaa ay kula shaahaynaysaa wuxuu yiri halkii baan ka cararay wuxuu yiri makhaayadii baan tagay waaba labadii qof oo halkii wada fadhiyo oo sheekaysanay ayaa ku qabtay buu yiri halka markay marayso وقيلنا وكعا فريسانيا حمزة وحلي دبر كادق داوعدي وحلي نيو قف بني آدم متهد ككلاو حورني والإلهي الله أكبر إلهي ووي هاي استشي وأنوغا إلهي نوي هاي لكن أذوق قف بني آدم متهد إن محي هيدي قبر ودد أيان محي هيدي يقو خاينتي قبر دبر كي قادق داوعدي يعني أنا قوكو احترامه ولكن كادقاني هذا لا يا runtii qalbiga taabanaya oo cabasho maaragtay aad arkaysid dareen iyo murugo badan inay xambaarsantay ayuu Hamza soo dhigtay Hamza wuxuu bilaabay inuu dadkii studio-ga fadhiya oo ku wada yiraahdo ha ka quusta wax la yiraahdo saaxiib wuxuu yiri gabadhaana dumar oo dhan baan ku nacay adigana saaxiib oo dhan baan ku nacay buu yiri dadkii audience-kii amba dadkii daawanaya barnaamijka ayuu intuu dhinacyadii uu ka eegay kolba dhinac uu jeedsaday dadkii studio-ga fadhiyay ayuu wuxuu yiri ka quusta saaxiib inuu jiro wax saaxiib la yiraahdaa haba yaraate ee ma jirto sida ku ogaada inaan wax saaxiib iyo adduunyadan uuna jirin buu yiri wuxuu yiri aad buu murugooday wuxuu xitaa hadalladu yiri waxa kamid ahayd wuxuu yiri waligaa buu yiri imaad arki jirin buu yiri aniga oo khamriga maalin walbana cabba in daroogadana isticmaala laakiin maanta sida waan sameeyaa buu yiri waxa uu sameeyaa adaa heerka gaarsiiyay buu ku yiri Hamza ayaa leh waa ninkii gabadha lagala baxay sida uu hadalka maarta u dhigayay wuxuu yiri adaa heerka gaarsiiyay anoo balwada leh maadi ogeyn buu yiri laakiin ana heerka gaarsiiyay adaa heerka gaarsiiyay wuxuu yiri joogta telefoonno ayaa igu iman jiray ilaa maalinka maanta buu yiri ma garanayo dadka ila soo hadlayay ee ilaha saaxiibkaagi lillahi ahaa yani bas farankaaga saaxiibkaagi saaxiibyada ugu dhawaa ee walaalka ahaa ayaa gabadhaadii la sheekaysta ayaa markasta la iisoo sheegaa buu marka waxa dhacday in uu marka inta yare fursadaha la siiyo Hamza aad buu kacsan yahay laakiin inta yare fursadaha hada loo siiyo
caadil wuxuu sheegayaa inay gabadhani ayna ahayn gabadh munaasib u ah oo u qalanta walaalkii iyo saaxiibkii xamza saaxiibkiisa koobaad ee xamza inuu guursado. waxa uu sheegay gabadhu inay ahayd gabadh rag badan la sheekaysata, gabadh aan غير mundabita buu yidhi, غير mundabita yacni qof maaragtay iska adag ma aha oo waa qof ma garanaysaa dee xagga ragga u jilicsan inay rag badan la sheekaysato ayuu ka wadaa. akhlaaqdeedu maaragtay ayna aada u fiicneen sida uu dee isagu u sheegay, allahu yaclam, inagu gabadha islaameed ma naqaane. waxa uu yidhi saaxiibkay buu ahaa xamze, inuu hadalka dadka ii rumaysta mu ahayn, inuu wax maaragtay fursad imuu siinin markuu makhaayadii noogu yimi, aniga meeshii buu igu dilay buu yidhi. haddaan ahay caadil, makhaayadii markuu igu yimi ee uu arkay gabadhii ayuu wuxuu yidhi meesha joogta, ayuu wuxuu yidhi aniga horta ko wuu ii dilay buu yidhi, way garaacay, wuu jir dilay. kadibna fursad imuu siinin inaan u bayaaniyo oo aan uga warramo xaalku siduu yahay iyo arrinku siduu maaragtay u dhacay, iyo gabadhan inaan kolka horeba anigu yani riisankaanu meesha u wada fadhino fursad imuu siinin inaan u sheego. kadibna wuxuu odhanayaa caadil, waxa aan dirsaday asxaab annaga noo dhexeeya ayaan dirsaday oo ergo oo kale aan u dirsaday xamza inay u tagaan gurigiisa oo ay soo raali yani ay na heshiisiiyaan. sidoo kale aniga laftigaygu haddaan caadil ahay intaan u tagay guriga xamza oon albaabka ku garaacay ayuu iga furi waayay. mar dambe xamza wuxuu odhan doonaa gurigaygii baan ka guuray, telefoonkaygii baan bedelay, magaaladii oo dhammayd baan kaaga guuray, shaqadii aynu ka wada shaqaynaynaan kaaga tegay just because ma raba inaan ku arko. bal qiyaas, qof shaqadii ka tegay oo gurigiisii ka tegay oo magaaladiiba uga tegay oo telefoon nambarkiisiiba ka bedelay just because ma raba inaan ku arko. taasi waxay muujinaysaa inta goori uu isku dayay caadil inanka inuu xiriir la yeesho saaxiibkii oo uu maxayda raali geliyo, laakiin mar walba xamza muu ogoleyn heshiiskii, meel walbuu kala soo xidhiidhana sidaasi ayuu u diidayay. waxaa la odhanayaa bal isdeji xamza oo ninkan warqad buu kuu soo qoraya, horta bal warqadda dhegayso. waayo buu odhanayaa, warqadii ayaa markuu qayliye uu naftu ka baxdaba siduu u qaylinayaba mar dambe ayuu wuxuu ogolaanayaa in uu warqadda dhagaysto. warqadda markuu dhagaysto waxaa loo akhriyaya risaalad amba warqad uu leeyahay caadil. صديقي العزيز الغالي حمزة، أن أحيانا نخاف من قول الحقيقة ونتجنبها حتى لا نجرح أشخاصا نعرفهم وهذا ما جرى يا صديقي. wuxuu yidhi saaxiibkaygii qaaliga ahaayow xamza, marmarka qaar waxa aynu ka meeraysanaa xaqiiqada inaynu sheegno si aynaan u dhaawicin saaxiibkeena amba maaragtay qof yani aynu jecel lahay. wuxuu yidhi fa ana khuftu an aquula alxaqiiqata alatii acrifuha khawfan calayka, anigu waxa aan ka baqay xaqiiqadii aan ogaa inaan adiga kuu sheego waayo adiga ayaan kuu baqayay buu yidhi. وكان هذا خطأي، تاسنا خلط كيجي أي أحد. مركا هالكا وحو كوضع صاحب قبل أد جورسر ربتي هنتيدا أنبا يعني سيدانو أركي إنا مقرنة رك بدل الشيء كيسطو حقيقة داسان أقابول وليه هاي، لكن أنا جمار هبين إن أذيك كوشيغو سبب طاقة waxaan ka ilaalinayay qalbigaaga dhaawac inaad maaragtay iyo murugada ayaan ka ilaalinayay, laakiin waxaan imika ogaaday arrinka inaan ka qariyo inaan ku khaldanaabo ka wadaa. وكان هذا خطأي، أعرف كم كنت مجروحا ومصدوما، وأنا أوجي بيجي تاس خلت كي جبهد، وأنا أوجي بيجي أنت نبر كاجا يوم مركتي يوريبا شوق يعني نحدين أم يعني كديس إكوجو هيد أرنتالي مركا وحورنا يا أعرف كم كنت مجروحا ومصدوما، لكن صدقني بيجي أنا أيضا جرحت. أنا قلفت كي بيجي وحا يقول عيب بيجي داوع يعني أي سوق قاري بيجي حين صدقت أنت أنني قد أخونك، مركي أدقو آمنتي أو استري صاحبك أو خايمة يا أنا قلفت جايبو تاسي وحي يقول نقطة بيدي يعني أرين أنا جنا إداو عذي بيدي أو دان يعني أنا قبل ما كافلين هاي بكوضا هل كما كمرسو مودا دقيساني حمزة ورقد انت لو آخرية انتو قيليو ايو جوج قرداح وحكورنيا اسمع دقيسو بورنيا ورقد يبودا ما يستريا وحورنيا لكني التمس لك العذر لأني أعرف أنك كنت في وضع لا تحرج عليه لا تحسد عليه. وحيدي لكنني التمس لك العذر
وحان كو سمين يا عذر دار بيدي لأني أعرف أنك كنت في وضع لا تحسد عليه وحان أوجهي بيدي إن تكشرتي حالة يعني أضق أم بحالة مرتدى عيدنا كحاسدين أم بعيدنا ما قرنا يعني عيد والبكو قرابة يصادين سدا ودقنو منذ افترقنا يا صديقي وأنا أفتقدك بشدة إلا مركي أينو كلا تقني صاحبك يو وحاد ياد بكو حيصودا بيدي وأرغب في استعادة أيامنا وجلساتنا وحان آد وحي سقبا وآن ربابو يدي إنaynu dib u soo ceshino maalmaheennii aynu wada joogi jirnay iyo fadhigaynu wada fadhiisan jirnay walyawma maantana wa amaama annaasi jamiican dadka oo dhan hortooda atlubu minka waxa aan kaa dalbanaya buu yidhi an tatadakkara sadiiqaka wa rafiiqaka wa an tatadakkara ana amaamana alkathiira linaciishahu macan waxaan rabaa saaxiibka in aad xasuusatid يعني أو أي أد أوجاتد إنه هايسنا عمري كله أم بالما كله أو أي إسلام ولا كرنه وكل ما أريده منك أنت كليه هي أن كعبها هاي أن نسامح بعضنا على ما كان إنه إسكعفنه لبدي إنه إستسامحنا وحي تجي أم بوحي الدعاء إن إسكسامحنا وأن تسامحني والمسامح كريم وحيدي الكل يعرف مركا هالكا مركا مرسو أي وحيدي مركا وأن تسامحني والمسامح كريم إنا دي عفيسيد بانكار هبابو يدي ويوقفك وحعفية وقف ملقلق وقف شرف له وقف وناكسم هالكا مركا مرسو أي وحكا أيو آد وحناقي حمزة وحورنا يا دادك وردن بايا قانا ننكن جوج قرداحي بكسو جيتسانية وحورنا يا ننكن لحسن ندود بانكاني أدونا 5 دقيقة أي تقاني بكوريا جوج قرداحيو نكن dadka yaga oo dhan baa yaqaana amba dadka yaqaano oo dhan baa ku og inuu yahay zayr nisa waxa la yiraahdaa nin dumar badan inagu halkaynu nahano gogoradii dhaqaaqdaba qofkaas maarta uu eega amba uu raaca amba ma garanaysa يعني وحويان nin aad u indha dheero dumarka xaqooda maaragtay u tamac badan ayuu yahay buu yidhi wuxuu yidhi dhabarkaygi buu iga toogtay wuxuu yidhi aniga oo saaxiibkiya anoo aaminay wuxuu yidhi markaa wuxuu yidhi halkaa marka ay marayso in wuxuu odhanayaa fursad si inaan kani hays maaragtay arrintaha kuu sharxay caadil wuxuu odhanayaa gabadhan waxa kaliya makhaayadii markaan joognayna dhex maray wuxuu ahaa aan kuu sheego gabadhani waxaan ku arkay isla makhaayada isla meesha iyada oo nin kale la sheekaysanaysa dabadeetana gabadhii baan qoorta soo qabtay buu yidhi oo aan gilgilayo aan ku iri maxaad saaxiibkay u khaayimaysaa gabadhii markaan gilgilayay anigoo wuxuu yidhi gabadhii u xanaaqsan oo wuxuu yidhi canaananaya oo le maxaad saaxiibkay u khaayimaysaa sidee nin kale ula sheekaysataa ayuu wuxuu yidhi xilligaasi ayaa loo soo sheegay warkan xun inankan oo lagu yidhi gabadhii maaragtay ninkii saaxiibka la sheekaysanaysa intuu soo cararay oo makhaayadii noogu yimi makhaayadii markuu yimi anigu wuxuu yidhi gabadhii ayaan maaragtay gilgilayayo aan canaananayayo aan lahaa sideebaad saaxiibkay u khaayimtaa halkaa markay marayso maxaa u malaynaysaa Xamza inuu oran doono Xamza intuu ku soo jeedsaday George Qardaaxi buu yiri way sheekaysanayeen way wada fadhiyeen markaas waxay lahaayeen hu ha nacam way qoslayeen buu ka wada markaas wuxuu yiri hu ha bay lahaayeen buu yiri ma laba sidaa wada hadlaya wuxuu yiri isla qoslaya ayaa wuxuu yiri uu ileeyahay waan canaananaya gabadha waa beentii buu yiri marka cala ay xal halkii ayaa ma garanaysaa Xamza oo dhowr goor George Qardaaxi oo ninkii kale maaragtay garab siiyay oo uu yiri saaxiibka waxa saad moodaysid ma aha ma garanaysaa nin kale ayuu ku qabtay gabadha iyada lamu sheekaysanayay isagu marka wuxuu oranayaa marka dambe wiilku horta caadil baa wuxuu oranayaa waxaan u xiisooday waqtigeenu wada qaadan jirnay wuxuu yiri waynu wada shaqayn jirnay wuxuu yiri waxbaynu wada cuni jirnay wuxuu yiri maalin iyo waqti walba habeen iyo maalinba waynu wada joogi jirnay sheekaysan jirnay mar walba waynu isla safri jirnay waynu wada shaqayn jirnay waxbaynu wada cuni jirnay wuxuu yiri miyaanad u xiisoonin maalmaheennii aynu asxaabta ahayn markaas wuxuu yiri isaguna wuxuu oranayaa mar walba waan ka fikiraa markaan ka fikira in caadilba waan ooyaa buu oranayaa وأنا أويا مركا كفكرة مركا على أي حال وحورني يا عادل وحكلا شروط تميا مركا دنبي حمزة قبل دي ما يتسكر
wiilkii gabadhani la sheekaysanayad lahayd waan ku qabtay may tusi kartaa ma ii raadin kartaa si uu qalbigaygu u dego waayay sidiiba oo la odhanaya waayay adigu المسامح كريم كلمة مركات تلاهدي أيا ستار كان أبا مارت حجاب كان أبا أرنتا مارت جدار كان إذين دحية أيا قاضية sidaas ku heshiinaysaani adiga arrinku baarka gacanta aad maanta ku haysa ilaahay ka sokowe saaxiibka uu isqoomameeyay inaanu xaqiiqada ku sheegin isaguna kuma khaayimahayn gabadhana nin kale ku arkay isna waa kan la ninkii kale hayahay ii raadiyo aan si qalbigaygu u dago marka waaye buu yiri saaxiibkayo waan kula raadinayaa ninkii kale wax walbood ku qancaysid waan kuu sameeynayaa kaliya iga raali ahow oo aynu israali gelin oo aynu علاقاتكني حريركني walaaltinimadeeni saaxiibtinimadeeni kalsoonideeni ku soo noqono على اي حال mar dambe inakii Hamza waxa laga helayaa kelmadii ah المسامح كريم muxuu sameeynaya marka labada wiil waxa soo ordaya caadil ba soo ordaya badana qofkan المسامح كريم yiraahda ee raali geliska qaata ayuu inta la kaxeeyo isaga uu George Qardaaka kaxeeyo ayuu u geeyay ninkii qofkii dhinacii kale fadhiyay ee isagu raali geliska soo codsaday laakiin doorkan ma sugaya caadil mar aliyaan marka saa loo qaado gidaarkii ayaa intuu soo cararo ayuu qabsanayaa inankii Hamza ayuu qabsanayaa sida aad arkaysaan very emotional ka aad iyo aad ka dareenka badan ka muuqdo ay labadii wiil isugu dhagayaan Hamza wuu istaagi kari waaya dhulka ayuu ku dhacaya sidii qof sujuudayo kale ayuu madaxa dhulka dhigaya inankii kalena wuu ku dhagaya sidaas uu ugu dhagayaa habsiinaya kadibna labada wiil darqi ayaa maaragtay lagu istaajinaya way isku dhagdhagayaan caadil ninka la yiraahdo George Qardaaxi ayaa wuxuu oranayaa yani warigay walaalo xataa sidana maan arkin waa maxay sidani ma garanaysaa walaaltin jacayl badan bay ka dhaxeeyay walaaltinimo badan saaxiibtinimo adag saaxiibtinimada noocana waa dhif iyo naadir nasiib buu leeyahay boornaya marka aad ka isugu dhagdhagaan wuxuu oranayaa George Qardaaxi nasiib buu leeyahay qof saaxiib noocana haysta aad buu nasiib badan yahay boornaya marka waxa dhacaysa in labadii wiil sida ay isku raali galiyaan ayagoo isku faraxsan oo sida ay soo haysto isku dhagdhagaya ay iyagiina labadoodiina ku wada dhagdhagayaan George Qardaaxi oo isagina la dhulkanaya isku dhagdhagayaan waad mahadsantahay bay oranayaan wala heshiisiinaya George Qardaaxi barnaamijku markuu dhamaado ee labadii wiil ay meeshii ka dhaqaaqaanay maartay wada baxaan studio-ga ay ka wada baxaan dadkii daawanaya audience-ka ah intuu saa ugu jeedsado ayuu oranaya George Qardaaxi oo idinkuna ma waayaysan ayuu oranaya maan arkin boodhanaya saaxiibtinimo sidan oo kale ah alxamdulillah boodhanaya wanaag iyo farxad ay ku dhamaatay boodhanaya magaalada barnaamijkan uu ku dhamaaday xaqiiqatan waxa weeyaan aniga laftigaygu waan ilmeeyay markay inamadu sidaas emotionalka ah ee maaragtay dareenka badan ee wadata ay maaragtay isku raali galiyeen isku dhagdhageen runtii waan ilmeeyay aniga laftigaygu waxa igu soo dhacday inaan saaxiib ahayn anaga oo yar yar oo runtii kalgacalka inta leeg oo kale uu naga dhaxeeyo alxamdulillah rabbil alamin xiriirkeedu muddo dheer ayaanu kala maqnayn laakiin alxamdulillah hadda xiriir wanaagsan ayaanu leenahay oo hadda kadib telefoonkeeda meel walba ayaan ku qorayaa si aanu mar dambe iiga lumin aniga laftigaygu ma sha Allah tabarakallah run ahaantiina waa nimco saaxiibtinimada runtii waa nimco way yartahay qof saaxiib aad iyo aad maaragtay xiriir adag oo maaragtay qof yani isla soo korteen amba in badan saaxiib ahaydeen runtii wuu yar yahay oo sida daacad labadeenu way isugu tihiin waan rajaynayaa caadil inuu daacad ahaa oo uuna la sheekaysan jirin gabadha waan rajaynayaa in uu gabadha uu nin kale ku qabtay oo hadalkaasi uu run yahay Hamza waa qof aad u qalbi fiican wuu cafiyay labadooduba waa laba qof oo aad arkaysid saaxiibtinimadooda inay aad u danaynayaan إلهي سبحانه وتعالى مصلحة إيه خير لحظة وهدقه لبدودنا ماركت زوجات في عن إلهي هالسيو أمد والبا حاسكيسو إساقون ويكو إكتهاي وين خايمة هين رنتي وحويان قفكم مركو قفكو قدوا وخايمو يعني آمنات ديو دنبا كاقوريسا مركا وحويان دمركا عشر كان هدبا يوصعدا عشر كان وحو سعدا هبلها شيكذا بدن hablaha inankii iyo saaxiibkii iyo haduu rabo walaalkii iyo haduu rabo jaarkiisa iyo kii dhaqaaqaba la sheekaysanaya na ilaahay ka baqo
waxa qofku ku fiican yahay inaad daacad qofkan u ahaatid isaguna inuu daacad ku ahaado hadday tahay qof wada sheekaysataan hadday tahay qof ay isla maaragtay isu doonan tihiin iyo hadday tahay qof ay isqabtaanba mar walba iimaankaagu waa inuu buuxo oo magaranaysa qofka kaliya aad ku eeg tahay wiil iyo gabadh waxaad doontid baad aha oo aad ahaatid mar walba qofka nuskaaga kala ah inaad ku eekaatid ayaa fiican oo noloshu sidaasi ayay ku wanaagsan haddaba intaynu ku kulmi doono almusaamix kariim amba barnaamijyo kale oo barnaamijyadeennii kala duwanaa magaranaysa iyo qisaskeennii kamid ah waxa aan idinkaga tegayaa fi amaan illah istawdactukum allah alladhi la tadiicu wadaa'icu assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuh